واجرتا saadaasha hawada laakiin bal roobka waa la xaday oo roob Soomaaliya wadamaha shisheeye xaday wali su'aashaasi jawaabteedu waa taagan tahay waxa weeyaan su'aal roobka waa la saadaaliyaa laftigeeda ma ahan sidii dhaqanka Soomaalida oo gugiiba dii doono la saadaalinaya oo la filanaya ma ahan waxa ay tahay hab cilmi ah wax lagu daraasadeeyay oo roob inta la eg iyo intaas sidaas ay la yiraahdo taas weeyaan marka roobka qaabka loo xadayo aan ku dhaco waxa ay tahay laba saddex siyaabood baa harta roobka loo kala dafaa waa mid roobka mid in la beerto oo ciidaas iskood u beeratay waa beer ayagoo leeyahay ayaga beertaan marka aad ma lahan midna waxa weeyaan dad roob u di'i lahaa baa laga dafaa oo laga duufsadaa oo laga dhacaa midna waxa weeyaan waa dadkaas waxa lagu sameeyaa qaab xadid ah ayadoon ogeyn baa laga xadaa midna waa la xoog midna waa xadid midna waa xaalad beerasho saddexdaas nooc bay kala yihiin waxaana jira marka qaab kale oo ku dhex jira oo la dhaho climate modification wax la dhaho oo cimilada in la bedbedelo sidii raba laga dhigo iyo markaas climate geoengineering waxa la dhaho iyadana oo qaab kale loo hindiseeyo hababkaas baa marka jiraan oo lagu dhacdhacaa waana wax cilmi ah oo jira roobka sida loo abuurto waxa weeyaan iskuulka waxa lagu dhigaa koowaad iyo labaad baa lagu dhigaa adduunyada anagu ma naqaan meesha naga martay sidaas ay tahay marka xaaladaasna waa tahay laakiin wali waxaan u maleynayaa in roobku hadda saddex qaybood baa sheegtay mid la abuuro mid xoog la isaga qaado iyo mid la iska xado anagu waxaan rabnaa midka xoog la isaga qaado iyo mid kale iska xado waxa weeyaan arintaas marka waxay tahay waa arin iska sahlan oo horta sideedaba roobka marka la beerayo macnaha qaab loo beero laakiin qaybta beerista marka aan soo dhacnaan xadista aan ka hadalnaa deer xadista la kala xadayo waxay tahay roobkii oo hawada jooga ama u soo socdo Soomaaliya mesela markuu soo socdo badweynta Hindiya markuu roob soo marayo kale dad ba arkaya waa ka hortagayaan markay ka hortagaan waxay sameynayaan roobkii meeshii uu ku abaarnaa oo Soomaaliya ahayd ba waxa la qaadanayaa diyaarado oo helicopter qaar ah iyo kuwa kale yar yar iyo kuwa kale oo fleet drone aircraft iyo fleet drone baa la qaadanayaa marka la qaato roobkiiba oo san sidii ari socdo kala saa u socda ba gadaal laga galayaa markaas waxa lagu sii deynayaa electric wax ah electricaas oo sii deynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow isku dhex jira marka hore marka dambana kulayl ka dhigaya markaas qayb badinaysa oo electricaas oo badinaysa hawadii badinaysa waxay sameynaysaa meesha ay ka di'i lahayd marka la joogo baa la didinayaa diyaaradahaas gadaal laga gelinayaa waa la didsanayaa daruurta sida loo didinayo waxaa la sameynayaa markaas buur humaag ah buur bug ah la abuurayaa buurahaas oo bugta ah oo la sameeyo waxaa lagu xardhayaa cagaar iyo kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo wiliq leh markaas markay aragto daruurtu markay aragto qaabkaas markay aragto daruurta markay aragto buurtaas oo buur dihin ah ay aragto iyo dhul kacsan oo beeno humaaga loo abuurayaa way soo raacaysaa markay waxay noqonaysaa sida hal igar maqaarka loo xiray oo kale to halkaas beerta la soo didinayaa waana buurtaasna way soo jiidanaysaa way hagaysaa si u wado meeshii la rabaa laga degsanayaa oo sidaas tartiib looga degsanayaa wayna dhacdaa wax maalin kasta Soomaaliya marka sanad walba almost sanad kasta ku dhacdaa مثلا marka waxa jirta dawladana dariska ka mid ah dawladaha adduunku way ilaashadaan horta hawadooda way ka warqabaan laakiin annaga kama warqabna hawadeena annaga bataanadina haystaa marka waxa jira مثلا hal dawlad baa marka jirta oo xoogaa awoodaas leh run ahaantiina dawladda saddexaad ee adduunka ugu badisa roob abuuradka iyo roob dhicida iyo waxaan oo climate modification iyo climate engineering iyo waxa dhan ku taf ah dawladdaas marka waxay samaysaa meesheedii ka degsataa tiro ka 3-4 jeer waxa dhacday inuu daadad qaadeen ayagii